isku soo bax balaaran ay maanta ay ku qabteen gudahan xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab qaxootiga Soomaaliyeed ee ku dhaqan xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab isla markaana ay uga soo horjeedeen dhacdadii dhawaan xogaga argagixisada ay ka geysteen isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho isla markaana ay ku geeriyoodeen in ka badan 200 oo qof oo Soomaaliyeed oo waxba galabsanin tira intaasi ka badan ay ku dhaawacmeen ayay maanta ka dhigeen gudaha xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab amahan intuu socday ayaa waxay ku dhawaaqayeen dadka Soomaaliyeed waa inay meel uga soo wada jeedsadaan dadka caadaystay inay dhiiga ummadda Soomaaliyeed meel cidla ay ku daadiyaan sidoo kale diinta islaamka aysan meel la kaga jirin in dadka islaamka ee Soomaaliyeed meel cidla markaasi lagu dilo qaar kamid ah dadkii ka soo qayb galay barnaamijkan waxa hadaladoodii kamid ahaa aad iyo aad baan uga xunnahay Soomaaliya hamidowdo cadawga Allah naga qabto cagta hoosteeda Allah geliyo waxna la noolaado ku haysana ma jirto waxa wax barashada moogi wax kale ku haysana male walaalayaal waxaan in ka codsanayaa in dibad ninka joogo inaad wax nagu tartaan ayaan codsanaynaa Soomaaliya ka xooyihiin dhibaatadii ka dhacday Muqdisho sabtidii soo dhaaftay 14 bishan oo lagu laayay dad bariyiin ah oo aan waxba garabsanin rag iyo dumar ardun iyo ciroole leh ayagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo shaqo tagay iska xamaalanaya qaarkood wax baranaya lagu xasuuqay dhibaatadaas ka xumaanshaha ka xunnahay ayaan halkan isugu nimid jazaakum allahu khayran tacsiinaya qaraxii ka dhacay Muqdisho 14 bishan aan ku jirno magaalada Muqdisho gaar ahaan isgoyska Soobe oo muslimiin aad iyo aad fara badan ku dhamaatay muslimiin aad iyo aad fara badan ku dhaawacantay hale inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun qaraxa wixii ka dambeeyayna ilaahay muxsin ku rido waxa kamid ah ardada ku nool xiriyaha qaxootiga Dadaab gaar ahaan dhigata iskoolka Al-Bushra aad baan uga xumay wuxuu ku dhacay ummadda Soomaaliyeed lagu laayay qaraxii Soobe laguna gumaaday aad baan uga meentay dhimatay ilaahay u naxariisto inta dhaawacna Allah caafiyo dawladda Turkiga sida fiican u garab istaagtay وأمهات علينا وحنا أمة الصومالية مالك استيقظنا على شيء إسكرب استاجا تاجرنا ولا علينا اللجوء ما ذكره صابة أنت قفك كنت لنا لا وحوقبري أنا دوك وعريري ما أنت وقتنا نطلع وأنا جواب سكولين جدا والله ينوعك ما يوضحون بين الصومالية غير ملك التوكان هذا الصومالي أنه هاي يبغى أن نقصنا معهم وقت الصوماليين وكثيرين ووضعوا قومي ووضعوا خسائر أن أمان ستة شغل أن الدولة سلاشوا هاي مغالية ولا سنبت إلهي جرب وهجر tani ayaa waxay astaan u tahay in xogaga argagixisada aysan marnaba wax wanaaga aysan u haynin ummadda Soomaaliyeed isla markaana meel cidla ay dhiigooda ku daadinayaan tanina ay tahay tii looga baahnaa in ummadda Soomaaliyeed ay meel looga soo wada jeedsadaan sidii ay oo la dagaalami lahaayeen fikirka ay qabaan xogaga argagixisada ee ku sugan gudaha Soomaaliya Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol raadiyaha iyo TV-ga qaranka Soomaaliyeed xiriyaha qaxootiga ee Dadaab